السلام عليكم أصحابتي سو دوادا ليفربول iyo Manchester City oo la garaacay Liverpool oo fursad aad iyo aad u muhiimsan caawa ka faa'iideyso weysay laakiin sarraganimo iyo kalsooni soo bandhigeen caawa haba la garaacay ayagoo la tumay amaamadooda idin wada si ay isku difaaceen caawa Liverpool oo ayagoo laba rid kaar qab ay u dagaalameen marnaba isma dhihin Liverpool laba rid kaar qabta marnaba qalbadeeda soo magalay soo dhawaada saaxiibayaal Manchester United ayadana waa la garaacay Real Madrid gool ay gaartay dhammaan kulamadii maanta la dheelay dib istaagi doona Arsenal ayadana sidoo kale 3 points ay qaadatay clean sheet afar gool ay ku badiyeen Gunners fadlan muuqaalkan like saar channelkaaga waaye subscribe na dheh gambaleelka furta saaxiibada muuqaalkan meel dheer soo u gaaro way iga codsi like hala saaro kulankii isbuuca ugu weynaa wuxuu ahaa kulankii Liverpool iyo kooxda kubadda cagta Tottenham Liverpool martii uu ahaa Tottenham lagu soo dhaweeyay ciyaarta 24 daqiiqo markii ay socotaba Liverpool red card ay qaateen laakiin taas waxay ahayd red card sax ah ay ahayd taakada sax ay ahayd macnaha red cardka koowaad oo Liverpool ay qaadatay halfkii intaan la marin Liverpool marnaba ma isdhiin red card ay qabtaa gool waxa uu dhaliyo Jogbow kuna dhaawacmay waliba goolkaas ay tooy Liverpool in laga badiyay waxa kaaga sii daran dhabar jab waxa ku ciyaaryahanada ka maqnaanay dhabar jab ku ma fahmino ciyaaryahanka koowaad red card ka qaatay waxaan ku dhahay maatid iga dhaafkii angolka iska dhali waay waxaan ku dhahay Jota saddex kulan maqnaanayo Jogbow dhaawacan waxaan ku dhahay arrimuhu susbi isku cakiran yihiin ma fahamteen waxaan ku yiraahday la isku soo laabtay macalinka la soo laabanay maana club wuxuu kursiga kaadka ka soo bixiyay ninkii ahaa Jota haduu keenay isla markii ridka jaalo hore ka qaatay Tottenham waa koox dhib badan jaalo markuu qaatay waa lagu dhibaa waa lagu daandaasana haddana jaalo kale ayuu qaatay ninka leeyahay Jota red card kale ayaa la siiyay ciyaartu ka baxay red cardka labaad markii ay qaadatay Liverpool adiga konton meelahaas ay ahayd weerarkii lagu bilaabay Liverpool ilaa 94 daqiiqo 95 daqiiqo ilaa ciyaarta oo ay mareysay macnaha weeraraas loogu waday koox laba red card qaadatay oo isku difaacaysan nolosheedii ma arkin aniga Liverpool ka hor hadda caawa halkaas dhibic qaadan lahaydeen waa idin cimaamadi lahaa hadartaan cimaamada muduntiin macnaha oo macnaha la idin garaac laakiinse laba rid kaar qaadateen alcamuum Tottenham gool muhiim ay ka gaartay Liverpool waa la garaacay gool dareed ugu horeysay xil ciyaareedkana ay ka soo qaabishay Tottenham waliba dhaawacyo iyo ciyaaryahano in ay ka maqnaadaan ay isku darsadeen Liverpool iyo Manchester City waxba ma isdaamtiin ha isku qoslinina xaafada marka isaaridii salaama ay kala wareejiya Real Liverpool وادداشان energy oo baahana ina biicabo waay idida ay ka socdo macnaha kubaddu rurufir Liverpool iyo Tottenham isku kubada dheelaan kubada counter attack oo kubadaha cirka u soconaya isla dheelaa waa ogtiin way isawaaleen hadartaan isqaboojinaya marka Liverpool waa la garaacay kulan banaanka lagu soo garaacay gurigeeda laakiin unbeaten ay ku tahay Liverpool waxaan la caadis ka dhigay halkaas oo gudbaya Manchester City ayadana mar hore ayaa kamaanka la sii saaray gool daradii labaad oo xiriir ayaa ku dhacday Newcastle la garaacday hadartaana waxa garaacday nimankii ahaa Wolves gool daradii ugu horeysay horyaalka Premier League waxay ka qaabileen Wolves ay ka qaabileen Pep Guardiola waxa cad in Rodri aan uu meel u dhaqaaqi karin Man City oo bila Rodri waa Man City bila hub macna Arsenal hadda Man City oo bila Rodri isku soo celi waysiin wax aagashin iyo wax aagudin maan afar adduunyo qarashanayso Manchester City maanta difaaciyadeeda Ruben Dias iyo Walker iyo waxaan ku dhahay iyo AK xoogaa way soo ayagoo laba jakeet markay ku soo dhufteen ciyaarta soo galeen oo maleynaya an goolku isku soo celay an gooladan oo dhan waxa mas'uulka Sergio Ramos oo xal noo bilaabay maanta waad u jeedeen hadartan waa u jeedaan Matip oo waliba taageerayaasha Liverpool qalbada qac ka sii caawa intuu dagaalami karo waa dagaalamay ka wareejiye la jawaaye Manchester City ayadana waa la garaacay still laakiin ayada horyaalka hogaaminayso oo waxay ku hogaaminaysaa Manchester City hal dhibic Liverpool fursad muhiim ah albaabka u soo gargaraacday laakiin waa ay ka faa'iideysay Tottenhamna waa jamahad saa ogtiin man naxariistaan waxay arkaan ay cagta ee mariyaan marka halkaas ugu gudbeena Manchester City ayadana waa la garaacay laakiin way u qabaan maadaama Liverpool la garaacay Liverpool iyo Man City waa walaalo isku hooyo waay labadu hooyadu dhashay isku hooyo waa macna baamino tana la garaaca tana comeback sameeyay tana Dias keenayso tana Fandaj keenayso tana Haaland keenayso tana Nunes keenayso tana horyaal qaadays ciyaaryahan la doona waa walaalo waxba isma dhaamaan halkaas ugu gudbeena Premier League wadi ma lahan
برايتون هاف البيون مانت وحي كو دعواد aragteen دسربي ويلشيس انت قبطا 6 جول laga kiciyaan ku dhayna Unai Emery iyo wiilashiis Aston Villa qabteen waa la fahmay qorshaha Brighton waxa way kan yar iga cili kan weela iska cilinaa taageerayaasha Man United bis markay arkaan way xanaaqaan koox kale oo ka xanaaqday ma arkin Brighton ayadana waa la garaacay kooxaha waaweyn ee xisaabsanta Brighton hadii wixii ka dambeeyo marka Liverpool iyo Man City iyo Real Man United oo dabka isku wada saaray halkaas ugu gudbeenaa asxaabta qiimaha badan Manchester maana ka hadlay Manchester ayadana gurigeeda inta loogu imaado Southampton dhagaxyaashii aboo 3 dhibcood laga qaataa clean sheet laga xirtay waxa la yiri goodbye qeyra in rajaynayna adinka soo ma dhigidine Allah idin soo arooriyaa la yiri Manchester ayadana gurigeeda loo garaacay halkaas ay ugu gudbeenaa u gudgalnay markii Arsenal lahaa Bournemouth u tageen Bukayo Saka waxa ku dhahay waa kaasa dhacday goolashooda dash 4 gool iyo Everton nadiif ee Gunners waxay taagin libaax leer jifaan Man City come on igu ma Emirates adag ku taala Man City Arsenal bila Rodri Man City adag ku taala Gunners hambali inta igu xiro muuqaalka la saaro tolaaye timaaciido share gareeyo janalkan subscribe dhaho 30,000 waxaan ugu dhiman 5,000 dhiig isku yeelaba xitaa reetaaritoy qofka 100 ay ku sugo waayay Real Madrid isa qaba cadka waxaan ku dhaaday xalay an gool oo ku badiyay Villa oo ugu badiyay ninkii ahaa Sergio Ramos Real Madrid 3 gool ebre ayadana ido banaanka ku maqanay soo garaacday kooxda la ciyaareen koox another level ahead waxay soo qaateen 3 points clean sheet horyaalka la liiga xiisiisi xamaasadiis kor u sii kacaya dagaalana ka jiro booqa ka jiro qoorta la isku dhagan yahay qoorta la isku dhagan yahay meel loo kala baxay malaha la dhahay Real Madrid waa kaasa waxay ka bataan ishaga joorta Bellingham saas loo landeereen way adag u talaabo ambali aad la intii ku xir Real Madrid fans Manchester City ilaahow caawa ninka la leeyahay Duku iyo waxa Duku waa Brona Duku ana wax ka sheegin baha iska fooforso macalinka Duku inuu wax badan ka saxa waa Duku waxa ka qaldan kubadaha Man City kubadaha dhulka ku wada laakiin cunuga markuu luuqa ka soo galo inuu baas ka dhigo meesha looga baana alaabaha qorofeedu jecel yahay marka Phil Foden iyo Erling Haaland ma arkin aniga ma arkin garoonka iska dhex taagnaayeen war asxaabe intaan ka badan war siimo wadi karee oo war ma wadi karee madaxa baa ifurane muuqaalka like saara si share garee oo channelka subscribe dhaare football fans ammaantiin saayna leeyahay Liverpool adaa jaaniska ka faa'iideyso weys oo hogaanka caawa la wareegi weys oo Man City dhiilad yaa ana hogaanka markay soo adkeen dhiilad dhamaan saaxiibada qiimada badan hal iyo laba qaybta comment-iga soo reeyo bye bye